mas-uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Booq ayaa xadhiga ka jaray qaar ka mid ah mashaariicaha horumarineed ee sanad miisaaniyadka 2017 ee tirsiga dalka oo la soo gabagabeeyay iyo kuwa ka socda oo bilow fiican maraya. mas-uuliyiintan oo isugu jirtay heer gobol iyo heer degmo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Doolo sidoo kalena ay ku weelinayeen maamulka degmada Booq ee gobolka Doolo ayaa si wada jir ah xadhiga uga jaray mashaariicahan horumarineed ee laga hirgeliyay xarunta degmada Booq. mashaariicahan ayaa kuwa la soo gabagabeeyay isla markaasina la bilaabay horaantii sanad miisaaniyadkii 2017 ee tirsiga dalka oo degmadu fulisay sidoo kalena kuwa heer federaal ah oo isugu jira anteenada isgaarsiinta iyo leerka 24 saac ee cadceedda laga dhaliyo oo waqti xaadirkan dhismihiisu bilow fiican marayo. haddaba mashaariicahan horumarineed ee laga hirgeliyay degmada Booq ayaa ahaa kuwa isugu jira kuwa degmadu fulisay oo la soo gabagabeeyay iyo kuwa heer federaal ah oo qaarkood adeeg bixinta bilaabi doona halka solar system kun oo waqti xaadirkan bilow fiican marayo. gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Cabdullaahi Daaq Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Booq mudane Cabdi Khadar Bedel ayaa warbaahinta dowladda Soomaalida SRTV uga warbixiyay. waxaan soo kormeerinay xaragan ka jiray mashaariico dhamaaday iyo kuwa socda oo aan kormeer ku sameeynay. mashaariicada dhamaaday xarag ka jiray waxa kamid ah deyr weyn oo loo sameeyay iskoolka dugsiga hoose dhexe oo runtii meel ay ciyaalka ardada wax baranaya baahiyo badan ay u qabaan in deyr loogu sameeyay ahayd. haday tahay meel wadooyin wadooyin badan ay maraan sidoo kale biyo ay maraan labadaba way ahayd. xilliyo kala duwan tala bixino kala duwan aan ku bixinay in meeshaas la sameeyo degmada uga mahadcelinayna inay iskoolka deyrkiisa xireen deyr weyn fiican bay ka sameeyeen. sidoo kale waxaan iyadana xariga ka jarnay xarun ama qayb kamid ah waaxaha isbitaalka oo la dhisi doono ama dhismihiisu hadda bilowday. waaxdaas oo degmadu ay miisaaniyadda degmada laga dhisay waaxda waiting area loo yaqaan weeye. waaxdaas ayaduna dhameystiran ayaan xariga ka jarnay oo miisaaniyadda degmada laga fuliyay. waxaan iyadana xariga ka jarnay anteeno magaaladan ay magaalo weyn weeye hal anteena ka taagnay tower xagga khadka iyo isticmaalka ciriiri baa ka jiray. anteena labaad baan ka hirgelinay oo anagoo Ethio Telecom kaashanayna isla markaana codsiyo kala duwan iyo waraqo badan aan qornay kadib waxay ka soo jawaabeen in magaalada xabad kale lagu kordhiyo iyadana xarga ayaan ka jarnay maantay. sidoo kale waxaan soo kormeernay solar systemka magaalada oo maarta shaqadiisu si fiican u socoto. hadday tahay dhismayaashii waa la dhameystiray. wuxuu kaloo iyadana waxa weeye shubabkii hoose oo solarka lagu fariisinayay shaqadiisu ay gabagabo marayso solarkii la saari lahaana uu yaallo. hawshaas iyaduna meel fiican bay maraysaa waana mashruuc ku soo kordhin doona magaalada waxa weeye inuu adeegga leerka uu ka saacidi doono oo leergelin dhameystiran ayaa loo sameyn doonaa magaalada Booq hadaan leer 40 saac oo cadceed looga faa'iideysanayo. shaqooyinkaas kala duwan baan maanta xarunta degmada ka qabanay. aad iyo aad u mahadsantiin jirnay anagii maamulka heer gobol mashaariicdii 2017 ay degmadu qaadatay si guud si gaar ah waxaan xarga uga jiraynaa galabta goob joog kana labadii mashruuc oo sida goonida ay degmadu istaraatiijiga u qaadatay uu ka mid yahay mashruucii xarunta caafimaadka aan ku daraynay waiting area ama administration area iyo sidoo kale qaybtii deyrka dugsiga hoose dhexe degmada Booq. labada mashruuc oo galabta xarga ka jirnay si guud mashaariicdii 2017 loogu talagalay isugu jirta dhismayaashii dayactir dhammaantood sidii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay iyo ku gabagaboobeen. labada mashruuc oo galabta xarig jirayna iyo ugu dambeysay si guud baan waxaan oran karaa 2017 mashaariicda loogu talagalay ay u dhamaadeen adeegiina inay 2018 ay galaan ay u diyaarsan yihiin. sidoo kale waxaa dhamaaday adeegii anteenada isgaarsiinta xarunta degmada laga waday oo runtii degmadu baahi badan u qabtay. Ethio Telecomna aanu mahadcelinayno gacan badan ay ka geysteen isaguna shaqadii inuu bilaabo ay u dhiman tahay mashruuciina aan la wareegnay xargana laga jaray una baahnada inuu qalabkii inta lagu rakabo si guudna waa la test gareeyay waa la tijaabiyay laakiin si official inuu toddobaadkan shaqada u bilaabay rajayna isagana isleenahay dhibaatadii isgaarsiinta degmada ka jirtay wax badan buu ka bedelay. aad iyo aad u mahadsan.